navigations way kala duwan dhowr nooc jira tamsin like this kana kala jira waxa kale jira mid loo yaqaano tusaalahan kana kala wajira sidoo kale waxa jira way fara badan yihiin anaga hadda waxaan qaadanaynaa mid kan drop down list uu leeyahay kana kala qaadanaynaa code kan sidiisa ku biyeena control C maadaama bootstrap oo install gareysan faylashan way shaqeyn doonaan haddii se ku install gareysan oo aan ku shuban sida aniga wadada aan marin ku shaqeyn doonaan saas daraadeed waxaan imaanaynaa meeshan master page keena qaybta ugu sareysa oo ka koreysa content placeholder kan waa page ka kale oo ku xiran meesha uu daatada dhigan lahaa intaan dhiganayna marka control V waxaan oo la dhigay faylasha waxaan soo koobiyeen xaggan oo dhigay navigation kan muxuu ka kooban yahay home about in a drop down list gas project-kan uu sooran kareysmay waxa loo yaqaanaa bank system laakiin wax information kuma jiraan aan save gareeno marka kadibna refresh la leeyahay wax kale ma sameeyaan waxaan lagu soo dari doonaa navigation ka hadda aan ku soo darsanay this is my website bank system drop down list information ku lahayd way ni shaqeynaya haddii aan soo yaray mobile device aan ka dhig fiiri wuxuu yeelanayaa calaamadaas listkan intay soo imaan doonaan sida loo install gareeyo bootstrap website-kaagan looga dhigay waxaan ka gudubnay responsive sida website-kaaga looga dhigay waayahay modification aan ku sameeyna marka waxyaabaha maadaama aan sameeyay faylasheena waxaan ku hormarinaynaa kan koowaad naga saari spamkan uma baanin home-keena waxaan leenahay sidiisa noo ahaado active kan aan ka qaadno glasska active ka inta waxaan leenahay about inta waxaan leenahay maybe naga saara sagdan buu u baahan qaybta drop down listiga project-keena wuxuu yeelan doonaa qayb registration iyo qayb transaction Soma iyo qayb report saddex qayb uu yeelan doonaa saddexdooda aan kala siino qaybta ugu horeysa waxaan u baxsanaynaa accounts keena waxaa hoos imaan doona maybe add new account sidoo kale waxaan dhihi doonaa edit accounts intaan bisa uga baahanahay sidoo kale waxaan ku daraynaa qofka isticmaalaya user in la sameeyo add new user add ama edit new user accounts it means dadka ka shaqeynaya aan laga wadaa users accounts-kana maxaa laga wadaa dadka akoonada ka furanaya tamsin anigoo kale iyo adigoo kale waayahay haddii aan hadda refresh daano modification dhacay meeshaan drop down ay ku qoran tahay way isbedeshay waxa ku hoos jira sidoo kalena way isbedeleen that's my new account inta waxaan ku darsan doonaa transactions deposit iyo withdraw sidoo kale waxaan ku darsan doonaa reports keena iyo waxyaabihii loo baahnay aan modification keena sii wadan marka intaan noo koobiyey list items kan oo dhan noo koobiyey haddii aad rabto inaad waxaan barato sida loo sameeyo bootstrap kan waxaad tagtaa getbootstrap.com kadibna meeshaas ka baro file walba sida uu shaqeeyo waxa uu qabto meesha uu ku xiran yahay meeshaas aad ka baran doontaa intaan noo koobiyey list item kan oo dhan kadibna basti noo dheh waxaan u baxsanaynaa maybe transactions ID-gan waxaan ugu bedeshaa ID number 1 transaction-keena waxaan u baahanahay kan ugu horeeya inuu noo noqdo deposit kan kale wuxuu noqon doonaa withdraw kana wuxuu noqon doonaa cancel it means transaction-kan waa laga laabtay withdraw uu ahaa ama deposit waa la qalday dib baa loo soo celiyay cancel transaction that's my new tab aan soo dirnay tab kale oo ay ku jiraan transactions-kayga sidee u shaqeeyaan waa arki doonaa haddii la raado ugu dambeyn qaybta reports-ka uga baahanahay aan ku soo darsano waan boobsiinaynaa maadaama muuqaal uu noo duubmaayo control V aan leenahay linkigan waxaan ka dhiganaynaa number 3 intan waxaan u baxsanaynaa maadaama accounts uusan ahayn wuxuu noqon doonaa reports-kan waxaa ugu horeeya waxa loo yaqaano transaction report it means how many transactions are maanta dhacday labo account statement meeshan keena account statement waxaa laga wadaa qofka ku imaado waxaa ii daabacdaa ku dhahay account statement bankiga ii daabac tamsin way dhacdaa soo ma
dadka accounts-ka bangiyada ku lahaa inta badan waxa isticmaalo intaas ku soo koobeynaa maadaama intaas ka badan waqti aan heleen waqtigu uu garay laakiin this is good example aan ka qaadan doonaa project-gayga hadda qaybtiisa hore way samaysan tahay kana wax yar modification rabaa markii aan ku dalo xoogaa inaan qurxiyo rabaa maadaama meelahan aan wax kala soo dhigan lahayn waxyaabo kale meeshan maadaama aan soo dhigan lahayn xoogaa yar aan kan qurxinaynaa si aan qurxino waxaan u baahanahay new style css inaan kusoo darsano oo customer annaga aan leenahay waxaan imaanaynaa qaybta contentska waxaan leenahay right click add new style sheet waxaan leenahay style-kayga wax information kuma jira hadda maadaama wax information ku jirin waxaan ku xiranayaa kan sidee loogu soo xiraa waa naqaan soma waxaad imaanaysaa style-kaaga kadibna ku soo xiro style.css wax kastoo aan style-kaas ka bedelo waxaa wax laga bedeli doonaa project-gayga waxaa ugu horeeya wax loo yaqaano navbar the navbar brand waxaa la wadaa project-gaaga masawirkiisa the name the image of the project haddii aadan musawir haysanin maybe waxaa laga yaabaa inuu kaa qaldamo ayaa laga yaabaa waayahay project aan soo qaadano tusaale ahaan Nail University image musawirka jaamacadda soo qaadanaynaa kadibna project-gaas rabnaa inaan soo gelino website-keeda kala galno hal musawir rabnaa inaan ka soo qaadano kaasaan rabnaa inaan wax ka bedelno labo navigation bar-kayga oo dhanna waxaan rabaa inaan wax ka bedelo sidee uga bedelayaa navigation bar-kayga nav bar-kaan ku jiraa nav bar-kaasaan rabaa inaan background color-kiisa bedelo oo background qurux badan aan siiyo si taas aan u sameeyo style-kaygaan imaanaynaa style kadibna waxaan leenahay dot navbar-keena waxaan rabnaa inaan u sadgareyno marka u horeyso the background color waxaan leenahay background laba dhibcood background waxaan siinaynaa minus color waxaad isticmaali kartaa hexadecimal color kadibna qalinkaan dooro sida photoshop loo sameynayo wax sana soo ma qofka photoshop yaqaanay waxaan rabnaa inuu noo yeesho colorkaas oo kale chrome colorkiisaas oo kaysin cagaarkaas waxaan raacinaynaa important means bootstrap-ka awal background uu siiyey soo ma background bootstrap in laga guuraan rabnaa oo kan loo guuro bootstrap aysanaa colorkaan oo kale oo kaysiina background-ka noocaan kala siinayna si aan u siino labadooda waa inaan soo dhinac dhignaa waxaan leenahay hash kadibna qalinka noo door kan waxaan noo geysaa meesha ugu sarreyso waxaan rabnaa inuu sidan u ekaado sax soo ma hash hexadecimal kadibna qalinka noo door kadibna meeshaan keli ku siiya background-keena wuxuu u ekaan doonaa midkan haddii aad refresh dhahno page-keena bangiga oo aan refresh dhahno background color-kiisa wuu isbedeli doonaa sidaan u ekaan doonaa yes wixii ku qornaayaa weli isbedelin color kale haystaan color-kooda waa inaan ka dhignaa marka white si uu soo muuqdo soo ma si uu soo muuqdo waa inaan white ka dhignaa xaggee ku jiraan waxaas marka haddii aad imaato navbar-kaaga waxaa ku jira wax loo yaqaano ul unordered lists loo yaqaana html qofkii yaqaan uu soo qaatay unordered listskaas waxaa ku dhex jiro anchor tag eedaas waxaa ku dhex qoran qoraalkaas eedaasaan rabaa inaan ka dhigno wax loo yaqaano background color ama white color aan siino isla eedaynaan soo qaadanayna ama nav linkiga galaaskaasaan soo qaadanayna galaaskaas loo yaqaano navbar link waxaan leenahay dot nav linkigeena waxaan siinaynaa colorkiisa waxaan leenahay minus white fff kadibna waxaan leenahay important waxaan noola siin doonaa background fartooda far cadaan linkigeena hadda maxaa noola dhigay far muuqato xoogaa dhumucaan u yeelno marka waxaan leenahay font dash this is style sheet haddii aad css soo qaadanin si fiican u raadi waxaan siinaynaa 600 oo kale important farta xoogaa dhumuc